ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa lagu soo waramayaa in dagaal rogaal celis ay gabaldhici galabta ay ku soo qaadeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maanta duhurkii ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Galmudug ay kala wareegeen gacan ku haynteeda kadib dagaal muddo saacada qaatay oo halkaas ka dhacay waa berigii saakana ka bilowday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa lagu waramayaa rogaal celiska iyo kii maantaba inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. Xaaladda magaalada Gurceel ayaa weli kacsan, waxaana hadda lagu waramayaa in ciidanka Ahlus Sunna ay la wareegeen inta badan magaalada Gurceel kadib markii dagaal rogaal celisa ay soo qaadeen galabta xilli dambe. Wararka naga soo gaaraya degmada Gurceel ayaa ku soo waramayaan halkaas dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale saraakiisha Ahlus Sunna ee dagaalka maanta halkaasi uu ku dhexmaray. Wararka aan helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in ilaa iyo dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay halkaasi ku geeriyoodeen. Wararka naga soo gaaraya Gurceel waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan Ahlus Sunna ay qabsadeen gaari nooca xabaddu aan karin ah oo la sheegay inuu lahaa Generaal Mascuud Maxamed Warsame, taliyaha guutada 15aad ee ciidanka xoogga dalka. Waxaana lagu waramayaa in gaarigaas markii la qabsanayay uu doonayay sida la tilmaamay dhaawaca taliyihii ciidanka danab ee Galmudug Cabdiladiif Feefle oo la sheegay in dhaawac ahaan uu u yaalay mid ka mid ah goobihii lagu dagaalamayay walow la xaqiijiyay in uu geeriyooday mar dambe. Saraakiil kala duwan ayaa la xaqiijiyay in dagaalkaas ay ku dhinteen. Laba xidigle Aadan Ibraahim Aadan oo ah taliyaha horinta saddexaad ee ururka 5aad ee ciidanka Gorgor ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday dagaalka ka socda magaalada Gurceel. Taliyihii ciidanka danab ee maamulka Galmudug Cabdiladiif Feefle oo ka mid ahaa saraakiisha ka dhex muuqda ciidanka dowladda ee ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay dagaalkaas maanta ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale saraakiil kala duwan ayaa ku dhaawacmay dagaalka sida lagu soo waramayo. Gaashaanle Maxamed Dhegaweyne oo ah taliyaha ururka 5aad ee kumaandooska Gorgor ee ciidanka xoogga dalka ayaa isaguna ka mid ah saraakiisha dhaawaca ah. Saraakiisha dhaawacmay sidoo kale waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada Haramcad ee Galmudug iyo sarkaal lagu magacaabo Qasaayo oo isna la sheegay in dagaalka dhaawac uu ka soo gaaray. Dhinaca Ahlus Sunna wararka iyagana naga soo gaaraya waxa ay xaqiijinayaan in dagaalkaas uu ku dhaawacmay sargaal magaciisa lagu sheegay Cabdifataax Ili oo ka tirsanaa guutada 15aad ee ciidanka xoogga dalka markii horena ka yimid dhinaca Ahlus Sunna. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in dhimashada dhinaca Ahlus Sunna ay marayso 7 askari sida wararku ay tilmaamayaan, walow khasaaruhu uu intaas ka badan karo. Iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in sidoo kale dagaalkaas uu ku dhintay wiil u dhalay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, hogaamiyaha ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca, walow wararka qaarna ay tilmaamayaan inuu dhaawacmay balse uusan geeriyoon. Warar aan weli la xaqiijin ayaa tilmaamaya in saraakiisha iyo ciidamada dhaawacmay ee ka tirsan dowladda iyo Galmudug ay goordhow diyaarada ka soo qaaday magaalada Dhuusamareeb kuna soo jeedo magaalada Muqdisho si xaaladooda loogu baxnaaniyo. Weli magaalada Gurceel waxaa ka soconaya dagaalo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa Ahlus Sunna. Inta badanna wararkii ugu dambeeyay waxa ay soo warinayaan in hadda Ahlus Sunna ay dagaalkii rogaal celiska ah ee galabta ay soo qaadeen ay kula wareegeen inta badan xaafadaha iyo goobaha istiraatiijiga ah ee ku yaala magaalada Gurceel oo uu ka mid yahay saldhigga degmada, xarunta maamulka degmada iyo meelo kale.